masaajidka quraanka ku soo akhristay ka yimaada dadka way ka cimri dheer yihiin waa aroortii ugu horeysay maanta imaado barkhad baa maanta igu soo casuumay injineer barkhad iyo injineer ibraahim baan maanta wada soconaa hawada aroortii dhacda waxaa la yidhahaa luqa carabiya nasiim hawa fresh ah oo pollution iyo diqow lama socdaan maskaxdiina waxaa gaadha oxygen iyo hawo nadiif ayaa gaadha marka tamartii way laba laamaysaa mur keento cimri dheer بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta socdaalkeennii caadiga jimcaha maalmaha qaar in subax ugu geli jirnay maanta isaguna nagu helinaya aqoon-yahan kibaar waxaan jecelahay bal inuu mawduuc muhiim oo kala hadda hore ku saabsan intii noo soo bandhigo kibaar ku soo dhow bismillaahi raxmaani raxiim barkhad aad baad u mahadsantahay walaal markii hore galabta jimcaha ayaan safarka jimcaha samayn jirnay saaka waa aroortii ugu horeysay maanta imaado barkhad baa maanta igu soo casuumay injineer barkhad iyo injineer ibraahim baan maanta wada soconaa siduu sheegay barkhad maanta waxaan points ama qodobo waxaan ka tilmaami doonaa aroorta subaxda in la kalaha faa'iidooyinka ay leedahay ragcataani qabla salaati alfajri inay adduunyada waxa yaallo oo dhan ay ka qiimo badan yihiin baa ka mida waxyaabaha kaloo ka mida rasuulku wuxuu yidhi allahuma baarik ummatii fii bukuuriha ilaahu ummadayda kallaha u barakee barakadiina way ku jirtaa laga warhayo waxyaabaha kaloo ka mida rasuulku wuxuu yidhi allahuma baarik ummatii fii bukuuriha ilaahu ummadayda kallaha u barakee waxyaabaha kale ee faa'iidada le waxaa ka mida inaad aroortii la kallaa waxaa ka mida qofka salaada subax tukada jamac ku soo tukaday masaajidka tega inuu maalintaasi ku sugnaanayo ilaalada ilaahay dimada ilaahay aroorta marka la kallaho hawada aroortii dhacda waxaa la yidhahaa luqa carabiya nasiim magaca nasiim baa la yidhaha hawada aroortii dhacda salaada subax ka hor iyo salaada subax kadib qofku markuu aroorta hore kallaho hawadaasi uu qaadanaya faa'iidooyinka leeda waxaa ka mida kow hawadaasi horta waa hawa fresh ah oo pollution iyo diqow lama socdaan hawadaasi waxay keentaa dhiigga markay raacdo nashaadaad iyo firfircooni bay qofka gelisaa waa qodobka koobaad qodobka labaad xagga mental activity-ga shaqada iyo maskaxda fikirka iyo shaqada maskaxda kor bay u qaadaa qodobka saddexaad waxaa la yidhaha digestive systemka habdhiska dheefshiidka ayay nadiif ka dhigtaayo caafimaadkiisa kor u qaataa qodobka afraad dhiigga ayay raacdaa dhiigga markay raacdo duxda iyo kolestaroolka iyo dufanka raacaya ayay hoos u dhigtaa maskaxdiina waxaa gaadha oxygen iyo hawo nadiif ayaa gaadha qodobka kale shanaad waxaa jira oo ay keentaa muruqyada iyo jirka ayaa waxay qaataan muruqyada waxaa ku jirtaa unugyada ku jira organal xubnyaro la yidhaha mitochondria oo tamarta soo saara unugyada tamarta soo saara ee muruqyada ku jira hawo nadiif ayay qaadanayaan marka tamartii way laba laamaysaa muruqa shaqadiisina aad bay u xooganaanaysaa faa'iidooyinka kale ay leedahay waxaa ka mid a qofka early in the morning aroortii kale hawada qaataa maalintaasoo dhan ma caajista dadka uu ka firfircoonaadaa waxaa kaloo ka mid a inay keento cimri dheer dadka had iyo jeer salaada subax masaajidka ku tukada ee masaajidka quraanka ku soo akhristay ka yimaada dadka way ka cimri dheer yihiin waxyaabaha kaloo keenta waxaa ka mid a caafimaadka jirka sida duxda dhiigga raacda dhiigkarka macaanka xanuunada dhanna hoos ba u dhigtaa waxyaabaha kaloo ka mid a oo la ogaado waxaa ka mid a qofka aroortii kallaha ee hawadaa soo qaata ee shaqo taga ee seexan waayaa ee hurdada ku noqon waayaa arsaaqadiisuna dadka kale ka arsaaqad badan tahay waxyaabaha kale cilmi baadhista ay gaalooyinku ku ogaadeen waxaa ka mid a dadka waxay ku odhanayaan dadka personal successka dadka guulaystaa qodobada ay leeyihiin 8 bay ku soo koobaan waxaa ka mid a early in the morning inaad kallahdo waxaa kaloo ka mid a jimicsi inaad samayso marka annagu halkan faa'iidooyinka hawada nasiim la yidhaahdo iyo jimicsigii intaana waxaa lagu darayaa cuntadiina waad gubaysaa cuntada iyo kallahaha iyo hawada intaasoo faa'iida inii haynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay qiyaar kibaar anigu salaam